wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka dalbaday kusimaha taliyaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka inuu ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta xariga Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. wasiirka ayaa muddo 48 saacadood ah u qabtay hay'adda inay ku soo gudbiso warbixin dhameystiran maadaama ehelada Mukhtaar Roobo waalidiinta iyo dadka matalaba ay si joogto ah uga cabanayaan in aan laga warhayn caafimaadkiisa iyo badqabkiisa sidoo kalena waxa ay dalbadeen cadaalad. ciidamada Ethiopia ayaa 13 December ee sanadkii 2018 Mukhtaar Roobo ka qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib amar kaga yimid dowladda Soomaaliya xilligaas oo isku diiwaan geliyay tartanka madaxtinimada doorashada Koonfur Galbeed waxaana tallaabadaasi ka dhashay rabshado dad badan ay ku dhinteen. codsiga wasiirka amniga ee Roobo ayaa imaanaya xilli khilaafka u dhaxeeya Rooble ee farmaajo uu marayo halkii ugu sareysay dalkana uu ku jiro xaalad hubanti la'aan ah oo qarka u saaran gacan ka hadal. waxayna ka hadalka Roobo Koonfur Galbeed ku noqon kartaa oo din kale oo kaga imaanaysa garabka Rooble maadaama Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu tiriyo garabka ee saaxiibka dhow ee Villa Soomaaliya. Maxamed Cismaan, Somali Cable, Muqdisho.